Asalaamu calaykum asxaabtayda ugu xiran wayna islaamay meel kasta dunida ka joogtaan waxayna leeyahay waxayna tahay wanaagsan maanta mowduuceena wuxuu ku socdaa dumarka mise gabdhaheena mise hooyooyinkeena ayuu ku socdaa u gaar ah dumarka in 6 qodobood aad ku dhajin kartid ninkaaga markaad ka careysiisid 6 qodobood ayaad ku dhajin kartaa. Mid ugu horeysa waxaa waaye raaligelinta ma jiro waxaanan dhijinin nin careysan oonan ahayn raaligelin qurux badan saaweynaydiisa uu aadku u jecel yahay dhib ma lahan si kasta uu kugu waalan yahay 5 daqiiqo kadibna u sheeg in aad ka xun tahay hadihin intuu kulul yahay maxaa yeelay ma dareemaya raaligelintaas adi 5 daqiiqo si hayar qaboobo hayar nasto inuu ogolaaw 5 daqiiqo inay carada ay xoog kaga yaraato ay wax yar oo naxariis yar soo dareemo degnaan soo dareemo ayaa dhici karta kadib raaligeli markaas ayuu fiicnaanayaa markaas ayuu maskax ku yeelanayaa asagoo careysan oonan waqti aad siinin hadaad ka hortagtid raaligelintaas ma eegaya caradii ayaa u muuqato qasi mis 6 daqiiqo in aad ka xun tahay u sheeg oo raaligeli oo agtiis imaaw oo garkiisa taawo oo tuuji raali iga noqo qalad ayaan galay iga raali noqday mar badan ku celi laga yaabaa inuu naxariis yar soo dareemo haddii aad tahdo maxaa la dhihi jiray wuu iskululeyna wuu ka sii daraya maahan waa inaad adi dareentaa asiga cara ayaa saaran waa inaad ayaa la rabaa in aad carada si ka qaadid adiga ayaa la rabaa in aad raaligelin buuxa bixisid. Midda labaad waxaa waaye xasiloonida inaad isdajisid marka uu ninkaagu uu ku careysan yahay taas ayaaba si fudud u dajinaysa dhibaatada ay gabadha intooda badan qabaan ayaa qayle ayay dhankooda ka bilaabaan aflagaado iyo caay careysiinayaan ruuxii sii careysnaa xasiloonida aad ayay u fiican tahay waa inaad isdajisaa marka uu ninkaagu ku careysan yahay haddii aad ninkaada ka careysiisid ilaali degnaantaada taas ayaa sababaysa inuu isagana dago haddii aad dagan tahay xasilooni ayuu dareemayaa wuxuuna arkayaa inaadan ahayn qof loo sii careysnaani karo waa inaad adig ka yeelataa waa inaad xasilooni aad tustaa waa inaad dareensiisaa. Saddexaad waa aamusnaan ulama jeedo is-ciil ama inaad iska dhigtid qof careysan maya iska dhig qof niyad jaban camal oo ka naxsan wixii dhacay xitaa iska ilmeysii waayo waxaa keenaysa in ninkaagu saacado gudahood naftiisu ku dhajiyo isla markaana uu dareemo badbaadiyo xaaskiisa niyad jebin hana la yaabin haddii uu ku yimaado suu carada kaaga dhajiyo balse sirta looga noqdo qof ku guuleystay aamusnaanta ayaa inaadan iskaga darin sababtoo waxay noqonaysaa ciyaalnimo iyo mid la dhibsado camal in aamusnaanta qaar ayaa saas iska afraad waxaa waaye lugaha kareemka u mari una riix haddii ninkaagu careysan yahay lugaha kareemka u mari waadna la yaabi doontaa isbedelka kareemka lugaha loo mariyay dejinayaa kacsanaanta murqaha wuxuu dejiyaa carada iyo cadaadiska sidaa darteed kareemka lugaha aad u marisid ayaa sidoo kale keenaya inuu kii kale u dareemo farxad iyo raynrayn xitaa haddii uu ku sii careysnaan lahaa intaas saygaaga hadduu ku caroodo lugaha u mari isbedel ayaad ka heli ayaad arki doontaa adigaaba dareemi doona markuu ku careysan yahay soo agtiisa lugihiisa u riix gacmihiisa u riix dhabarkiisa u riix wuxuuna dareemayaa farxad iyo raynrayn kuma sii careysnaan doono isbedel waaye waa sir yar aad ka heli kartaan dhinaca rag marka aad kale aad ka careysiisaan. Midda shanaad waxaa waaye saas u careysan yahay xaajigaaga maanta aad ka careysiisid maalintuu xaajigaaga careysan yahay aad aragtid. Midda shanaad cunada ugu jecel yahay maalintaas u sameey jawi macaan la gal
in caruurta seexso, caruurta buuqa ilmaha ka ilaali, meesha qadada romantic uga dhig, cunada ugu fiicneedna uu kale asaga dooqiisu ahaa asaga uu jecel yahay si kadis ugu kari maalintaasay asiga ayaad ka arki doontaa waana arki doontaa natiijada. Waxaa waaye hadiyad mise surprise ugu dhig wuxuu asaga uu jecel yahay iyo waxay ahaataba saacada ahaato hadiyad yaraan iyo weynin magash laakiin wuxuu jecel yahay xaajigaada lama filaan ugu dhig oo surprise ugu dhig suuki kale uu ku sii jeclaado. Asxaabtayda ugu xiran meeshaas ayuu noogu egyahay maasha Allah inaad fahanteen ayaan rajaynayaa wixii sax iyo wixii qalad dhinaca commentiga noogu soo reeba asxaabtiina la sii wadaaga si asxaab fara badan ay u gaarto wili meesha aan rabno wili ma gaarin waxaan rabnaa inaad kor noo qaadaan idin kale kor noo qaadi kara fariin dhinaca commentiga noogu reeb sidaas iyo fi amaanillah.